noqonaysa in wax alla wixii jamaaco lagu magacaabo oo shicaarku ku muuqanayo oo dhan ba jumcada ay ku asaxayso. xadiidkanuna xasan weeyaan. baabun idaa waafaqa yowmu اljumcati yowma ciid, maalinta jumcadeed hadday waafaqdo maalin ciid oo ciid iyo jumca ay kulmaan. can iyaas bni abi ramlah الshaamiy qaala shahidtu mucaawiyata bna abi sufyaana radia allahu canhuma, mucaawiya ibna abi sufyaan baan la joogay, wa huwa yas'alu zayd bna arqam, isagoo su'aalaya zayd ibna arqam radia allahu canhu. qaala wuxuu ku yidhi, mucaawiya ku yidhi zayd, ashahidta maca rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam ciidayn ijtamaca fii yowm, ma la joogtay rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam laba ciidood oo maalin ku kulmay? qaala nacam. qaala kayfa sanac, siduu yeelay? labada ciidoodna marka wuxuu ka wadaa ciiddii usbuuciga ahayd iyo ciiddii sanawiga ahayd buu ka wadaa, ilan laba ciidood oo kale ee fitri iyo adxa ma kulmi karaan. qaala zayd baa wuxuu yidhi salla alciida, ciiddii buu tukaday, uma rakhasa fi ljumca, jumcada dadka waa u ruqsadeeyey. faqaala wuxuu yidhi siduu ugu ruqsadeeyey, man shaaa an yusalliya falyusalli, qofkii doona inuu tukado jumcadana ha tukado. annagu waa tukanaynaa jumcada laba ciidood baa maalintan kulantay, annaguna jumcada waan tukanaynaa, qofkii doonana jumcada ha nala tukado, qofkii doonana ruqsuu qabaa ayuu yihi nebiga calayh isalaatu wasalaam. marka jumcadu waajib ma noqonayso hadday laba ciidood ay ciid iyo jumca ay kulmaan. can caطaaءi bni abi rabaaxin qaala sallaa bina bnu zubayr, cabdullaahi bnu zubayr ayaana tujiyey radia allahu canhuma fii yowmi ciid, maalin ciideed buuna tujiyey, fii yowmi jumcatin, maalin jumcadeedna awala nahaar, maalinta gelinkeedii hore barqadii ayuu ciidina tujiyey. uma ruxnaa ila aljumca, haddana jumcadii baan soo aadnay, falam yakruj ilaynaa nooma soo bixin. fasallaynaa wuxdaanan, keli baan u tukanay, yani duhur bay tukadeen. wa kaana ibnu cabaasin radia allahu canhuma biطaa'if, ibnu cabbaasna طaa'if buu joogay. falamaa qadima markuu yimid, maka uu yimid, dakarnaa daalika lahu, sidaasaan u sheegnay, iyaga oo ku tirinaya inuu gaf sameeyey cabdullaahi ibnu zubayr radia allahu canhuma. faqaala, markaasu ibnu cabbaas wuxuu yidhi asaaba sunna, sunnadii buu waafaqay, yani waa hagaagsan yahay. marka nooma soo bixintaa waxaa weeyaan xataa duhr umaanu imanin oo duhr ma aanu tujinin. marka taasna waxay laga qaadan karaya hataa duhurku inaanu maalinta aanu waajib ahayn, ee jumcadii duhurka bedelkiisa ahayd iyo ciiddii intay isgaleen ciiddii ay ugu filan tahay. can caطaa ijtamaca yowmu jumcatin wa yowmu fitr, waxaa kulmay maalin jumcadeed iyo maalin ciidu fitri ayaa kulmay, calaa cahdi bni zubayr, yani fii imaarati bni zubayr radia allahu canhuma. faqaala, markaasuu ibnu zubayr wuxuu yidhi ciidaani ijtamaca fii yowmin waaxid, waa laba ciidood oo maalin keliya ku kulmay. fajamacahumaa jamiican, labadoodiibuu isku daray. fasallaahumaa waa tukaday rakcatayn, laba ragcadood buu tukaday bukratan aroortii. uma lam yazid calayhimaa, waxba maanu ku darin, xataa salla alcasra, ilaa casrkii uu ka tukaday, xataa duhurkii xataa maanu tukanin. halkaa salaadeed ayaa maalintaa ku filan. can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam annahu qaal qad ijtamaca fii yowmikum haada ciidaan, maalintiinantada waxaa kulantay laba ciidood baa kulantay. faman shaءa ajza'ahu min aljumca, qofkii doona jumcada waa uga gudayaa, waxaa uga gudaysa oo kaga filan ciidda. wa innaa mujammicuun, annagu waan jumcaysanaynaa, yani jumcada waa tukanaynaa. laakiin qofkii doona noqonaysa in wax alla wixii jamaaco lagu magacaabo oo shicaarku